بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء بإذن الله تعالى waxaynu qaadan doonaa galabta mowduuc diiniya oo inoo geli doono fadiilatu sheekh maxamed ibraahim jaamac mowduucaasoo si gaara ugu saabsan dumarka iyo qisooyin aada iyo aada dhaxalgal u ah mowduucan maanta sheekha aynu martida uga nahay ilaahay khayr badan ha siiyo waqtigiisa iyo cilmigiisa iyo camalkiisana allah u barakeeye aynu markaa waxa weeyaan inoo soo diyaariyey waxa weeyaan qisatu maryama mawaacidun wa cibar ama duruusun wa cibar maryama bintu cimraan oo qur-aanka lagu sheegay oo haweenka qur-aanka ilaahay ku sheegay ee qur-aanka ku waaray ka mid ah duruus aynu ka qaadanayno dhaqankeedii iyo fawaa'id inoogu jira hadday tahay xagga tarbiyada xagga cibaadada xagga markaa waxa weeyaan camalka intaba waa mowduuc si gaara markaa dumarka usii khuseeya dumar iyo ragbana u yaala sheekhaynu kusoo dhaweyneynaa innagana waxaynala gudboon inaynu weelayno oo aynu gudbinno oo aynu ka faa'iidaysanno ilaahayna haynaga dhigo subxaanahu wa tacaala kuwa hadalka ka faa'iidaysta kiisa wanaagsanna raaca sheekhaan kusoo dhaweynayaa falyatafadal sheekhu mashkuuran wamaajuura mowduucan runtii waxaa inoo soo diyaariyey oo isku dubariday markaskeennan iyo malcaamadeenna oo si wanaagsan markaa waxa weeyaan bulshadii waxbarashadii ay u hayeen ugu daray qeyb kale oo tawciye ah iyo markaa waxa weeyaan in dadka la waaniyo ayaguna aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin kusoo dhawaada sheekhu بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار walaalayaal marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamkiisa aan la koobi karahayn een laga shukri naqi karahayn inoogu deeqay ayna siiyey marka labaadna waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa culimada iyo macalimiinta markaska iyo masaajidka inoo soo qabanqaabiyey duruustan iyo muxaadaraadkan ardayda iyo waxa weeyaan xaafadaba lagu wacyigelinayo
marka la saddexaadna dhammaan dadka khayrka ka soo qeyb galay ayaan iyagana u mahadnaqayaa. ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala khayrka aynu dhegaysanayna intaynu u soo soconnay iyo inta aynu markaa waxa weeyaan dhegaysanaynaba inuu ajar iyo xasanaad inooga qoro, dembi dhaaf iyo markaa waxa weeyaan derajana ilaahay naga siiyo. sidaa la sheegay kelmaddeennu waxay ku saabsanaan doontaa biidni illaahi tacaala inaynu wax iska xusuusino qisaska iyo dhacdooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu kaga warramay oo inaga mudan inaynu u fiirfiirsanno oo waxa weeyaan casharo aynu ka baranno, nolosheena aynu ku iftiinsanayno. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka axkaam buu kaga warramaa, waxyaalo layna faraayo iyo waxyaalo laynoo diidayo laynaga joojinayo. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramaa qisas iyo waxyaalo hore u dhacay. laba ujeedo ayaana inta badan laga leeyahay qisaska: in dadkii wanwanaagsanaa qaar ka mida laynooga sheekeeyo iyo khayrkoodii iyo wanaaggoodii, iyo markay ilaahay amarkiisa qaateen sidii ay u liibaaneen si aynu ugu dayanno. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ummado madaxadaygay oo gaaloobay oo ilaahay awaamirtiisa diiday oo la halaagay buu inooga warramaa, si aynaan u joogsan amba aynaan ugu dhicin waxyaaladii lagu halaagay. sidoo kale qur-aanka waxaa laynooga warramaa waxyaalo qeybiyaada oo inaan arag laakiin loo baahan yahy inaynu rumayno. jannuu qur-aanku ka warramaa, naar buu ka warramaa, qiyaam buu ka warramaa. waa waxyaalo qeybiyaad oo loo baahan yahy inaynu rumayno. haddaba qisaska ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kaga warramay oo u badan ambiyada ilaahay soo dirayey iyo ummadahoodii iyo loolankii ka dhaxeeyey, waxaa mararka qaarkood la soo dhexgeliyaa dad wanaagsan oo laga sheekeeyo noloshoodii iyo xaaladoodii. mararka qaarkood baa laga yaabaa qofku haddii ambiyada looga sheekeeyo inay naftu tidhaahdo qofkaasi nebi ilaahay doortay buu ahaa, markaa ma kol baan samayn karayaa wixii uu samaynayey. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dad aan ambiye ahayn oo rag iyo dumarba leh oo saalixiinah oo cibaadadooda iyo wanaaggooda marka laga sheekeeyo aadaynu nafteenna u yaraysanaynu ilaahay nooga warramay. ilaahayna luqmaan saalix buu ilaahay kaga warramay, maryamu ilaahay kaga warramay, dilqarnayn buu ilaahay kaga warramay. dad badan oo saalixiina ayuu ilaahay kaga warramay qur-aanka. qisadeenna markaa maanta waxay ku saabsanaan doontaa haweeney saalixada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku ammaanay. nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa shariifkaa uu ku ammaanay uu kaga warramay. sidaa daraaddeed muslimiintuna mowqifka ay ka qaateen uu noqday ee laynooga baahan yahay inay ammaan iyo wanaag inaga mudan tahay oo ynu u ducaynayno wanaaggeeda inaynu kaga dayanayno. muslimiintu markaa waxay dejiyeen mansiladaas iyo booska ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dejiyey ee ammaanta ah. halka ay ku leexdeen laba qolo oo ahlulkitaab ah oo iyagu waxa weeyaan meelaan wanaagsanayn iska taagay sayidata maryam binti cimraan. labadaa qolo waxay kala ahaayeen yuhuud oo meelaan wanaagsanayn iska taagay maryama, bal waxa weeyaan dhaleeceeyey oo zine iyo xumaan ku sheegay
ay markaa waxa weeyaan ka dahiran tahay. waxaa kaloo meelaan wanaagsanay iska taagay oo iyaguna markaa waxa weeyaan xadkii ay lahayd dhaafiyey qolada yuhuud la yidhaahdo, qolada kiristanka la yidhaahdo, oo iyaguna markaa gaadhsiiyey ilaa xaddi aluluuhiya, ilaahnimaba gaadhsiiyey, bal yidhi waxa weeyaan waa waalidatu ciisa, waa ciise oo ilaaha, iyaduna hooyadii weeyaan oo iyaduna waa la mid. labadaa qoloba innagu waynu khilaafaynaa, waxaanaynu aaminsannahay inay ahayd addoon saalixada, alla ka cabsi badan, dhowrsoon, khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey, bishaaraadkeedu iyadoon dhalan ba ay yimaadeen ilaa ay markaa ka dhimanayseen khayr iyo cibaadiya wanaag lagu yaqaanay. gabadha wanaagsan ee saalixadda ah ee Maryam waa ruuxa keliya ee dumarka oo dhan amba banaatu Xawaa qur'aanka lagu sheegay. ruux dumar oo kale oo magaceeda qur'aanka lagu xusay ma jiro. inta kale haddii dumar kale la soo hadal qaado amba dumarkii ambiyada, يعني waxa weeye imra'atu fircawn, imra'atu nuux, يعني waxa weeye waa dhaqlaysa imra'atu luut, يعني waxa weeye laakiin magac ruux dumara maryamo oo keliya baynu haynaa. waa gabadha keliya ee qur'aanka suurad ayada loogu magac daray, suurado kalena wax lagaga sheegay oo lagu xusay weeyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala martabo weyn ayuu gaadhsiiyey maryama ibnata cimraan. wuxuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala maanteeda ka mid ah, ma almasiixu ibnu maryam ilaa rasuulu qad khalat min qablihi الrusul wa ummuhu sidiiqa. masiixoo ciise ibnu maryamo ah muu ahayn ilaa rasuul ilaahay soo diray oo rasuul kalena ay ka horeeyeen, hooyadiina markaa sidiiqo ayay ahayd. wanaag iyo run iyo rumayn ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu yaqaanay. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanteeda wuxuu ku yidhi, waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryam ina allaha اstafaaki wadaharaki واصطفاك على نساء العالمين. نبي محمد buu rabbi ku leeyahay subxaanaه wa tacaala, nebi maxamed oo waqti xus malaa'igtu ay la hadashay ay tidhi yaa maryam, maryamay ilaahay ayaa ku doortay oo ku dahiray xumaan iyo wax kasta oo lagugu sheego, ilaahay baa kaa dahiray. wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin, ilaahay wuxuu kaa doortay maaha waktigii ay noolayd, dumarkii waxa weeye waktigeedaa joogta ama zamaankaas ee caalamiinta o dhan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka doortay. bal xaaladaha qaarkeedna ilaahay dumar oo dhan buu ka doortay oo ilaahay uu siiyey. ida mansilada aadka u weyn ee ilaahay dhigay ayay taagan tahay. nebigeenuna salى اllahu عalayhi wasalam uu sii adkeeyey oo rasuulku wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam, khayru nisaa'iha maryam ibnata cimraan. yani waxa weeyaan maryama ibnata cimraan waxay ahayd tii ugu khayr badnayd dumarkeedii, yani dumarkii zamaankeeda iyo waktigeeda tii ugu khayrka badnayd ayay ahayd. wa khayru nisaa'iha khadiija, khadiijana dumarkii waktigeeda tii ugu khayrka badnayd bay ahayd. khayriyadaas nebi maxamed baa salى اllahu عalayhi wasalam uga markhaati kacay. rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam xadiis kale oo saxiixa ayaa waxa uu ku lahaa, kamula min الrijaali kahiir, ragga in fara badan baa dhammaystirmay
oo ilaahay subxaanahu wa tacaala darajo iyo nebinimo uu siiyey. walam yakmul min annisaa'i dumarkana kamay dhammaystirmin ilaa aasiyata ibnata cimraan, aasiya imra'atu fircoon oo ahayd xaaskii fircoon, iyo maryama ibnata cimraan oo waxa weeyaan aynu ka sheekaynayno. iyo wuxuu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wafadlu caaishati calى الnisaa ka fadli tharidi calىa saa'ir الطacaam. fadliga iyo makaanada ay ku leedahay caaishina dumarka waxa weeye sida cuntada thariidka la yidhaahdaa ee cuntooyinka kale uga mudantahay uga wanaagsan tahay ayay iyaduna uga sarreysaa. cuntooyinkii dee ugu wanaagsanaa waktigaas ayay ahayd markaa waxa weeyaan thariidkuna. halkaa waxaynu ka arkaynaa walaalayaal yacni fadliga iyo derajada ay lahayd addoonta muslimadda ee ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka uu la doonay. sidaa daraaddeed baa maanta aynu u baahannahay qisaska caynkaas ee ilaahay qur-aanka uu kaga warramay inaynu akhrisanno oo aynu dabagalno. markaynu qur-aanka ka akhriyayno u fiirfiirsanno. suurad bu ilaahay dhammaanteed baa iyada ugu magac daray. suuradaha qaarkood baa qisadeeda waxoogay ka mida lagu sheegayaa, qaar baa dhowr sadar wax ka yar lagu sheegayaa. intaba waxa weeyaan waxbaa ku sugan iyo cibro inooga baahan. qisadeeda dadka waxa weeye waktigeennan jooga casharaynu ka baranaynaa, nolosheenna iyo nolosheedaynu isbarbar dhigaynaa, cibaadadeeda iyo cibaadadeennaynu isbarbar dhigaynaa, mawaaqifta ay qaadanaysay iyo imtixaanadii soo maray iyo waxay ka yeeshay ayaynu nolosheenna wax uga qaadanaynaa in sha allahu tacaala. haddaba waxa isweydiin leh, horta maryami maxay ahayd? sidee bay ku soo barbaartay? qoys sidee bay ka soo jeeday? waxyaaladii ay dumarka kale kaga duwanayd maxaa ka mid ahaa? ayaynu waxoogay markaa in sha allahu tacaala ka tilmaami doonaa. maryama ibnata cimraan ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariisa gaadhsiiye waxay ka mid ahayd dumarkii reer bani israa'iil bay ka mid ahayd. waxay ka soo jeeday qoys reer bani israa'iila oo lagu yaqaano wanaag iyo khayr iyo alla kacabsi ayay ka soo jeeday. inta badan qoyska wanaagsan waxaa looga barto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo saaraa haddii tarbiyadooda lagu dadaalo ubad wanaagsan. haddii dayacay xagga guriga ay ka timaado iyo tarbiyadana sidaasi ka duwan bay noqotaa. markaa maryami qoys saalixiina oo wanaagsan oo diinta ilaahay ku toosan ayay ahaayeen. tusaale ahaan hooyadeed ruux dumara oo cibaado badan bay ahayd, alla kacabsi lagu yaqaanay. waktigii dambe iyadoo uur leh oo xaamila ayaa waxa weeyaan ilmaha caloosha ugu jira ayay ilaahay ballan kula gashay ooy ku nadartay ilmahaas haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo oo ifka uu soo baxo inuu noqdo ilmo ka shaqeeya ilaahay beytkiisa, beytulmaqdis amba gurigaa barakaysan iyo masaajidka ilaahay ayaabay u nadartay inuu halkaasi waxa weeyaan ka shaqeeyo. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray ilmihii u calool galay ee caloosha ay ku siday markii uu dhashay inaanu noqoninba waxa weeyaan inan uu noqdo. aad bay arrintaas waxa weeye markay aragtay ay u yaabtay. laakiin wuxuu ilaahay siiyey wax kaleba ha jeclaatay waxa weeye way ku sabirtay, raallina way ku noqotay, magacna way u bixisay oo maryamo ayay u bixisay ilmihii u dhashay.
waxaanay tidhi walaysa adakaru kaalunhaa wainii samaytuhaa maryam wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaydaani arajiim. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay markaa waxa weeyaan uga nabaadina xidhay oo ilaahay u weydiisay inuu ilaahay ka ilaaliyo shaydaanka waxa weeyaan aanu waxyeelayn. ilaahay baa inooga waramay ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiin duriyata bacduha min bacd wallahu samiicu caliim. إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إلهي ببردي قعمها وصدقاتي إلهي وأكون نذري المعنى علوش كسيدو إن وقفي ونقض حرمك إلهي وإقا أقبل ويقفك وحك الصوب حيادا إلهي كأقبل وحي ودوني كهل مايو. إلهي وحي فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. إلهي وحى عندك إنلي وإن بيت الأنبا ذكر واللب لبك يدد قنا إسكمد معها وأنا نتلمام الدونا سيدا أنا إسكمد وهين إيا وحي الذي كمد يسيني وحي كوكال الدويهين. إلهي سبحانه وتعالى وحلي وإني سميتها مريم waxay tidhi waxaan u bixiyey ilmaha ii dhashay baynata ii dhalatay maryama waxaan ka magan gelayaa adiga markaa waxa weeye iyada iyo duriyaddeedaba shaydaankan ilaah ka magan gelaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ka magan gashay oy weydiisatay oy bariday inuu ka ilaaliyo shaydaanka iyo lumitaankiisaba. aayaadkaas xikmadaha inoogu sugan waxaa inoogu sugan horta fadliga iyo darajada ay lahayd maryam hooyadeed lafteedu iyo cibaadada. culimmadu waxay ka hadlaan hooyadu hadday cibaado badan tahay oo dadaal badan taho khayrka ay u dadaasho, qur-aan akhriska u dadaasho, ducooyinka iyo adkaarta ay u dadaasho, ilmaha waxa weeyaan raad buu ku yeeshaa. hataa ilmaha caloosha ku jira ayaa saameyn uu ku sameeyaa qur-aan akhriska iyo dhegaysiga iyo ducooyinka iyo adkaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku xusaysaa. waxaa ku jira waxa weeyaan in ilmaha loo magac bixiyo oo magac wanaagsan loo dooro, in loo duceeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo baryo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis ibnu cabbaas uu ka warinayo xasan iyo xusein labadii ilanee awowga u ahaa ayuu nebigu u yeedhi jiray. kadibna ducooyin buu ku akhriyi jiray ay ka mid tahay acuudu bikalimaati illaahi taama min kuli shaydaanin wahaama wa min kuli caynin laama. nebigu calayhi salaatu wasalaam ducada intuu ku akhriyo oo shaydaanka ilaahay uga ka magan galo iyo markaa ilwax cawrida ayuu odhan jiray kaana abuukum yacuudu bihimaa ismaaciila wa isxaaq. aabbihiin waa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam. qofka awowgiisa fog ayaa lagu tilmaami doonaa, mararka qaarkood lagu tilmaamaa awowgii amba aabbihii. markaa awowgiin ayaa markaa waxa weeyaan ugu nabaadiini xidhi jiray ayuu yidhaahdaa waxa weeyaan ismaaciil iyo isxaaq oo labadiinan uu dhalay ahaa. walaalayaal iyo waxa weeye ayuha alabnaa, waxaa sidoo kale markuu ilmihii yaraa uu dhashay ee uu gaadhay darajadii amba waktigii la barbaarinayey la soo korinayey, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajiyey dadkii ahlu khayrka ahaa iyo dadkii wanaagsanaa inay u tartamaan ilmaha yar ee dhashay amba inantaa dhalatay daryeelkeeda iyo kafaaladeeda iyo gacan ku haynteeda iyo tarbiyadeeda in loo tartamo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nasiib u siiyey weliba qorituur ku helay yacni waxa weeye zakariya
nebiyullaahi zakariya ayaa nasiib u helay qaraabana ay ahaayeenoo wuxuu qabay habaryarteed maryam habaryarteedna wuu qabay isaga ayaa markaa nasiib u helay inuu soo barbaariyo gurigii habaryarteed iyo halkaas way markaa waxa weeye ku soo barbaartay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ilaaliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ka warramay ducadii ay ducaysatay maryam hooyadeed rabbi baa yidhi fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasan ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuul wanaagsan buu ka aqbalay wa ambatahaa nabaatan xasana ilmo wanaagsanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka beeray wa kafalahaa zakariya nebiyullaahi zakariya ayaa kafaalo qaatay isaguna wuu ka faa'iidey oo ilaahay baa inooga warramo oo yidhi kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab wajada cindahaa risqa qaala yaa maryamu annaa laki haada qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay inuu kafaalo qaatay zakariya oo uu xanaanin jiray mixraabkii uu ku cibaadaysan jiray iyo halkii waxa weeyaan ilaahay uu ku caabudi jiray ayay iyaduna iska agdeganayd ooy ku cibaadaysan jirtay mar allaaliya markuu soo galo iyadoo halkaa ku cibaadaysanaysa waxyaalo la yaab le ayuu arki jiray oo ilaahay baa yidhi kulamaa dakhala calayha zakariya wajada cindahaa risqa mar allaaliya markuu usoo galo arsaaq hor taalla ayuunbuu waxa weeyaan ugu yimaadaa culimmada tafsiirku waxay yidhaahdeen waxa maaragtay faakihatu shitaa ayaa sayfka u iman jirtay bimacnaa khudrawaadka iyo fawaakihda waktiga ay soo godo wakti aan ahayn amba khudrawaad aan waktigaa oolin ayaa iyada ilaahay u keeni jiray halkaa lagu arki jiray iyadoo ku haysata imanka suuqyada waxyaalaha qaar baynu ka weynaa oo la idhaha waktigaa waktiga liintu kala goyi jirtay waktigana tabaadhadaa kala godo waktiyaynu naqaanaa shayga la la-yahay ayaa iyada ilaahay u keeni jiray arrintaasi yacni waxa ay keentay inuu aada iyo aada ula yaabo zakariya oo uu markaa waxa weeyaan uu is idhaahdo talow waxaana xaggay uga imanayaan su-aashaa buu markaa weydiiyey oo uu yidhi waxa weeyaan annaa laki haada waxaan xaggay kaaga yimaadeen yaa kuu keenay yaa ku siiyey wax kale may odhan ismay dhibin waxay tidhi waxa weeyaan huwa min cindi illaah ilaahay xaggiisa ayaa risqigani uu ka yimid ilaahay baa ii keenay maxaa yeelay ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahay ciddii uu doono xisaab la-aan ayuu arsaaqayaa meel aanu ka filanayn buu ilaahay ka siinayaa meel buu uga soo dhoweynayaa man yataqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuquhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ka baqa waxa weeye meel aanu ka filanahayn ayuu rabbi ka arsaaqaya subxaanahu wa tacaala sidaas ayay markaa ku soo barbaartay oy ku soo kortay oo ku cibaadaysan jirtay wakti baa soo socday inan weyn oo markaa waxa weeyaan shabbada ayay noqotay ilaahay oo way qaan gaadhay ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaduu ka leeyahay awgeed kaas aad bay u argagaxday cabsi baana gashay waxaanay ilaahay ka magan gashay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka ilaaliyo oo aanu fidnayn ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisatay waxaa culimmadu xikmad baa ku jirtay malaggaa u yimid inuu calaa suurati bashar isagoo bani aadam u eeg u yimaad hadduu ugu iman lahaa suuraddii ilaahay ku abuuray malaku jibriil oo waxa weeyaan intaasoo kun oo baad ilaahay ku abuuray iyo garab oo samadaba qarinaaya dee waxaa laga yaaba inay argagixi lahayd laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaduu ka watay qof ayuu markaa ugu soo ekeysiiyey
malaku jibriil calayhi الsalaam waxay tidhi qaalat inii acuudu bالraxmaan qaalat inii acuudu bالraxmaani minka in kunta taqiya ilaaha raxmaanka ayaan kaa magan gelayaa mid ilaahay ka cabsanaya haddaad tahay yacni waxa weeyaan way iska abisay ayadoo baqaysa laakiin wuu la hadlay waana u bushaareeye wuxuu ku yidhi qaala inamaa ana rasuulu rabbik liahaba laka gulaama zakiya sidaad moodaysay maayihi anigu waxaan ahay rasuul miduu kuu soo diray ilaahay waxaanan kuugu imid inaan markaa waxa weeyaan yacni waxa weeyaan wanaagsan aan ku siiyo kuugu bushaareeyo taa ayaan kuugu imid arrin la yaab labay noqotay oo aada ula yaabtay ilaahayna subxaanahu wa tacaala qowlkeedii inoo soo raray qaalat annaa yakunu lii gulaam walam yamsasnii bashar walam aku bagiya ayadoo yaaban bay tidhi sidee ayuu inan iigu ahaanayaa bimacnaa sideed inan iigu bishaaraynaysa ad iigu sheegaysaa ayadoo bani aadamba aanu itaaban oo dee waxa weeya waxaynu naqaanaa sida ilaahay aynu uga baranay ee taranka bani aadamku uu ku jiro laba qof ayaa markaa waxa weeyaan ilaahay uu ka dhex abuuraa ilmaha dhalanaya markaa siday ku dhacaysa anigoo keligeeya oonaan waxa weeyaan cid kale is arag inaan markaa ilmahaad iigu bishaarayso walam aku bagiya qof xunna aanan ahayn qof xunoo xumaan lagu yaqaanayna aanan ahayn siday arrintaasi u dhacaysa oo waxaan dhacahayn weeye qaala kadalika qaala rabbuk huwa calaya hayin ilaahay baa sidaa xukumay oo sidaa yidhi oo sidaa kuu sheegay oo sidaa ii soo diray weliba rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walinajcalahu aayata lilcaalamiin wanajcalahu aayata linnaas dadkana aayad iyo calaamad ilaahay weynidiisa ay ku gartaan ayaan uga dhigaynaa waraxmatan iyo naxariis minka wa kaana amran maqdiya waana arrin la soo gooyey oo lasoo xukumo ka noqod aan lahayn go-aankaas ayuu u sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala